gabadhan ayaa waxa ay sheegtay in 20,000 oo dollar ay ugu deeqday dadka abaaruhu ay ku saameeyeen meelo kamid ah gobolada dalka Soomaaliya. lacagtaas ayay ku sheegtay inay tahay lacagtii ay ugu talagashay in lagu qabto xafladda arooskeeda. muuqaalka oo TikTok ay ku soo bandhigtay gabadhan ayaa waxa ay ku shaacisay waxa ay kala damacsan tahay 20,000 oo dollar iyo cidda ay rabto in la gaarsiiyo. waxayna sidoo kale fariin cajaa'ib ah u dirtay dadka ay doonayso in lacagtan ay gaarsiiyaan dadka markaasi dhibaataysan. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salaama inta samaha jecel Soomaali weyn oo idin meel kasta ee dunida ay ka joogtaan waa idin salaamay. halkan waxaan ku hayaa jeeg ay ku qoran tahay 20,000 oo dollar ay ku qoran tahay. jeegaasi lacagtaasi u socotaa yaana soo diray xageena ka bixi rabtaa. okay jeegani waxaan ugu talagalay lacagtan waxay ka imaada marka koobaad oo lacagta arooska ayga aan ku dhigan lahay aan aroos ku sameeysan lahay aan ku guursan rabay waaye. maadaama aan arkay dad dhibaataysan abaare ay ku dhufteen intaan aroos iyo tamashleen iyo tumasho iyo fanaaniin kale dad u baahneen aan ku bixin lahay lacagtan aan ku qarash gareyn lahay waxaan door biday lacagta inaan Soomaaliya aan ku shubo aan door biday oo dadka abaaraha hayso lagu caawiyo biyo loogu dhaamiyo baad iyo cuntaba lagu gaarsiiyo sidii wax loo gaarsiin lahaa. okay waxaan codsanayaa please dadkan lacagtan aan u xil saaray oo qaybinteeda aan u xil saaranay waxaan ka codsanayaa qabiil dadka loo kala bixin dadka dhibaataysan oo abaaraha ku dhufata la wada gaarsiin please. gabadhan oo TikTok ku soo gasha Muxsin Maxbuub ayaa sheegtay inta lacagtan ay ku bixin lahayd wax aan loo joogin iyo damaashaad ay ka durbiday inay gaarsiiso walaalaheeda ku dhibaataysan gudaha dalka Soomaaliya. bahda Shaaciya TV ayaa isku dayay in si toos ah gabadhan ula xiriiraan hase yeeshee inooma suurtagelin. mar alla marka ugu horeyso aan gabadhan helno halkan ayaan idinkula soo wadaagi doonaa akhbaaraad intaasi ka sii dheer.